لا يزال الخير حيا لا يزال. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan salaamayaa dhammaan bulshooyinka ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda inuu imaan doono dhakhtarkii meesha Cabdixakiin insha Allah sida ugu dhaqsaha badan inuu soo wajahan yahay. waxaan ogeysiinaynaa dhammaan bulshooyinka iyo dadka bukaanka ay xanuunsan Ilaahay subhanahu wa ta'ala caafimaad haye inay ka faa'iideystaan insha Allah. diiwaan gelintiina waa la bilaabay isna diiwaan geliyaan. diiwaan gelintu wax lacag maaha waa bilaash waa lagu soo dhaweynayaa dadka insha Allah sida ugu dhaqsaha badan adii maanta bishu waxa weeye waa bisha koobaad afarteedii Ilaahay subhanahu wa ta'ala wadno insha Allah waxaan rajeynayaa isbuucan gudihiisa inuu imaan doono diiwaan gelintu intaas ay socotaa. waxaan leeyahay marka baahda Muqdisho iyo nawaaxigeeda iyo waxa ku noolba inay si diiwaan geliyaan aad baan ugu codsanaa hadaan baahda al-shifa. inta markaan ka soo gudbo weysiiska waxaan idin sheegayaa insha Allah Ilaahay subhanahu wa ta'ala wadno dawooyin cusub oo la soo qaaday oo Mareykan laga keenay ayaan idin hayaa. dawooyinkani waxyaalo fara badan bay isugu jiraan inaan xanuuno fara badan ay daaweynayaan insha Allah sida hadda dadka calciumka waaweyn ee calciumka ma lafa xanuunka ka cabanaya ragga waaweyn oo ka cabanaya prostate-ka oo kale dumarka ka cabanaya ugxanta ama hormoonka daciifay ama hormoonkoodu khaldan yahay hooyooyinka iyaga lafkooda waa loo helayaa kuwii ka cabanaya infectionka insha Allah Ilaahay subhanahu wa ta'ala idmo infectionka lafkiisa waa la helayaa hadii uu noqdo ka dhiiga raacay hadii uu noqdo kan wareega ka jahaysta ku dhaca. daawooyin quality-goodu fiican yahay oo Mareykanka laga keenay oo magaranaysaa garaamkooda iyo wax kastaba ay saxan yihiin waa idin keenay. waxaan leenahay bulshooyinka reer Muqdisho aad iyo aad dad mahadsantihiin walaalaha xanuunsan Ilaahay caafiyo. wallaahi dhakhtarku kulli xoogaa uu joogaya ma dheeraanayo insha Allah waad ka garan kartaa qof masaafo soo galay Hargeysa iyo Garowe iyo xarumo fara badanna way u dhiman yihiin. markaa waxaan jeclahay dadka ama daneynaya sheekha ama raba ama u baahnaa inay la kulmaan ama raba inay xanuunkooda ka faa'iideystaan waxaan rajeynayaa insha Allah Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo idmo qadar kooban buu joogayaa insha Allah isaguna uu soo sheegi doonaa intuu inoo joogi doono insha Allah Ilaahay idmo. marka waxaan jeclahay inta uu imaanayo in laga faa'iideysto walaalo fara badan oo waxa jira aniga dadka waxaan ahay meesha ka shaqeeya magaalada Muqdisho xogaalkana ka ah walaalayaal fara badan oo xanuunsan oo bukaana oo su'aalo fara badan weydiiyay dhakhtarka goorma imaanaya way jiraan. marka insha Allah walaalaha iyo walaalaha kale ee khayrka jecel waxaan ku baraarujinayaa insha Allah diidimka Ilaahay idmo. walaalayaal diiwaan gelinta way bilaabmatay wax lacag la iska qaadi maayo soo dhawaada dhakhtarkana laga faa'iideysto time buu inoo soo horay waqti buu inoo soo horay insha Allah walaalada bukaanka xanuunsan waxaan rajeynayaa inay ka faa'iideystaan insha Allah idinka Ilaahay.